sida ha u jeedaanba halkan waxaa nooga muuqdo ilaa iyo 4 sawir. 4taas sawir ayaa maanta sharxaynaa. Marka qaybta ugu horeydo cashirkan waxaan uga hadlaynaa wax loo yaqaano scaffolding oo adeegsan doono sawiradan. Marka qaybta ugu horeyso waa app-bar. App-barka waxaa la dhahaa waa qaybta sare ee application-kaaga. maadaama aan dhisayno Flutter applications wuxuu leeyahay qayb sare oo ku qoran tahay title-ka. Markii horena waa soo aragnay qaybtaas waxaa loo yaqaanaa app-bar loo yaqaanaa. App-barkan waa widget. Marka body ayaa ku xigo. Body waa qaybta wax lagu soo daabacayo. Marka website-ka joogtid HTML-ka qayb wuxuu leeyahay body. Body-gaas waxaa lagu soo qorayaa wixii la rabo markaas la gudbinayo. Haddii aalad video, haddii aalad qoraal. Marka qaybtan oo inta badan application meeshii laga isticmaalayo ahay waxaa loo yaqaanaa body. Marka qaybta saddexaadna waxaa waaye waa bottom navigation oo ah qaybta ugu hooseyso oo yacni setting-kii oo kaleeto, home-kii oo kaleeto, profile-kii oo kale la dhigayay waxaa loo yaqaanaa bottom navigation bar. Kii korona muxuu ahay app-bar. qaybta dhexena waxaa waaye body. Marka intaas waxaa ku wada jiraan wax loo yaqaano scaffolding. Scaffolding-gana waa barnaamij kuu suuragelinayo in application dhistid qurux badan oo yacni wixii dhan kuu sahlaa sida app-barka inaa heshid, body-ga inaa heshid bottom navigation-kii marka waxaa jiro barnaamij kale oo la dhahayo drawer oo isla ku siinayo scaffold-ga iyo floating action button. Labadan marka drawer-ka waa markii application-kaaga WhatsApp-ka oo kale ama Facebook markaad tagtid 3 xariiq meel kaaga soo baxeed oo kaleeto 3daas xariiq oo saan camal kuu soo baxayso marka ku dhufatid oo kaleeto option kale oo badan kuu soo baxaayo. Marka waxaa loo yaqaanaa drawer ayaa loo yaqaanaa. Drawer-ka waa kana markuu soo furmo saan uu noqonayaa option badan inta kaaga soo baxaayo oo profile-kaagii ku saabsanay ama ciwaankaaga inta badan. Marka waxaa jirto kuwo kale oo dheeraad ka sii ah sida snack bar. Snack bar waa message-ka oo kaleeto marka meel password qaldan gelisa ku dhahayay. Password-kan hal mar oo soo muuqda asaga UI kama tirsano oo si baalkiya permanent uma tirsano. Waa maro imaana wuu baxayaa. oo fariin sida waa inta badan fariinta loo adeegsadaa textbooks-ka markii password-ka oo kale password qaldan gelidid oo login aad dhahdid oo kale ayuu wuxuu ku leeyahay password-kaaga waa qalad ama password-kaaga ama username-kaaga ayaa wax ka qaldan yihiin. Marka waxaa loo yaqaanaa isagana snack bar. Waxaa soo haray bottom sheet waxa la dhahayo oo asagana wato scaffolding. Waxaan oo dhan waan arki doonaa. Waxaan arki doonaa qaybta xigta qaabka loo sameeyo